السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي ولا soo dhawaada maanta muuqaalkan waxaynu kula wadaagayaa afar mashruuc oo greenhouse ah oo aan dhawaan dhamaystirnay kana hirgelinay duleedka magaalo u dhow Hargeysa afartan greenhouse ayaa walaalayaal waxaa lagu beeri karaa gudahooda 2000 oo geed kuwaas oo cabiradooda uu yahay 8 mitir oo ballac ah iyo 40 mitir oo dherer gudaha ah إن شاء الله ولا ليال وحان ربا إن وربحين إذن كسيو جرين هاوس يدن يقاب كاد كوهر جرين لعيدين قابب أدوغ الشقيسان كرتان يسبب تأويهين جناعسيقا ووانا أكسن السنة كان لوادو كوني أفري لباتان كيوحي كدن بيابا هذا اللعاق يومال قشي يفايدات كسو عشان كرتان intaan guda galin waxaan jeclaan lahaa marka koowaad inaad muuqaalkaad like saartid si uu dad badan insha Allah u sii gaadho hadda walaalayaal greenhouse-yadan aad daawanaysaan waxaad arki kartaan inay yihiin greenhouse aad u waaweyn ma sha Allah oo guud ahaan cabirkoodu yahay 8 mitir oo ballaca iyo 40 mitir oo dherer ah marka gudahooda la socdo greenhouse-yadan ayaa waxa aan dhawaan ka dhamaystirnay duleedka magaalada Hargeysa waxaana ay leeyihiin dhammaan adeegyadii uu greenhouse u baahnaa hadii ay tahay dhismihii oo dhamaystiran birihii dadkii taangigii systemkii waraabka ee drip irrigation ka dhibicda ama tafiiqda ahaa xarkihii qudaarta nursery waxyaalihii oo dhan ayaa gudahooda ugu dhamaystiran haddaba greenhouse-yadu waxay faa'iido u leeyihiin walaalayaal waxay soo saari karaan qudaar cash crop qudaarta sida joogtada daruuriga loo iibsado oo aad u tiro badan halka greenhouse oo kale tusaale ahaan ee 2000 oo geed lagu beerayo ay nooc geed kasta dhibicda systemka waraabka waa 30 centimeter oo 2000 oo geed mid kasta agtiisa lagu beerayo 2000 geed waxa dareemi kartaan oo tusaale ahaan tomato haday ka soo qaadno ama yaanyada tamatada waxay soo saari kartaa 25000 ilaa 30000 oo kiilo muddada ay beeran tahay ayaa gudihiisa laga soo saari karaa waxaana lagu dhex beeraa qudaarta dhaadheer ee intermediate-ka loo yaqaano ayaa gudahooda lagu beeraa taas oo keenaysa in aad maalin kasta intaasoo 100 kiilo oo yaanyo ah ama noocyada kala duwan ee gudahooda lagu beera ah in aad soo saartid oo suuqii marka aad geysid haddaba greenhouse-ku wuxuu ka mid yahay system biyo kooban oo dhibicdhibaca isticmaala guud ahaan dadan oo cimiladiisa gudaha la xifdiyay cayayaanku aynay soo galin shaqaale kooban ay ka shaqeeyaan cash crop aad u fiican oo 90% iyo in ka badanba soo baxa oo aan khasaarin gudihiisa laga soo saaro insha Allah walaalayaal waxaan rabaa inaan halkan ku baraarujiyo greenhouse badan maana kanaalka ku soo bandhigay aan qaar qiimeeyashooda idin sheegay dad badan ayaa xaqiiqatan waqtigu igaga lumay oo haba yaraatee diyaar ahayn oo xataa mashaariic aan u qiimeeyay aan la hadlay oo aan waxyaalo badan noocyo badan oo kala duwan kaga shaqeeyay oo waqtigii toos markan xogtii oo dhan siiyay iska aamusay camal marka insha Allah walaalayaal qofkii u baahan ee maal gashan kara ee greenhouse-yadan xataa intaan ku dhisnay raba inuu ogaado iyo kuwa aan Turkiga ka keeno qalabada materialka loo soo iibsanayo PDF kan $30 ayuu gadanayaa waa shuruuda kaliya taasoo laga caawinayo in mashruucii lagu qiimeeyo lagula hirgeliyo qiimeeyashiisii lagula sugo lagu soo iibiyo insha Allah waxyaalo badan aad gudihiisa aad ka akhrisan kartaan oo materialka greenhouse-ka iyo project-yada ay gudihiisa ku qoran yihiin linkiga koowaad ee WhatsApp-ka ayaad ku dhufan kartaa ama linkiga aan halkan soo saarayo ayaad toos internet-ka hadaad ka haysatid aad uga iibsan kartaa waa qofkii raba inuu hirgeliyo ee maal gashada shuruuda kaliya aan wato waa inuu PDF ka gataa xogta ka soo akhristaa lambarka aan kala soo xidhiidha qof kasta uu gata aniga sakariya ahaan ayaa la xiriiraya oo si gaar ah insha Allah uga caawin doona haddaba walaalayaal markii qodobka ka soo gudubno greenhouse-ka hadaad tusaale ahaan ku beertid qaabab badan baad uga faa'iideysan kartaa yaanyada oo kale ama tamaandhada hadaad ku beertid oo ala 22000 ilaa 30000 oo kiilo iyo ka badanba aad ka soo saartid waxaan idin kula talin lahaa tusaale ahaan xataa marka suuqa qayb la iibsado haday qayb soo hadho makiinada tomato paste ama yaanyo shiidka gurgurta soo saarta
ee Turkiga taalo oo kale makiinad yar oo production warshad yar oo kale ah oo noocan oo kale ayaad u soo iibsan kartaa kabacdi yaanyadii ama tamaatadii waxaad u bedeli kartaa iyadoo tomato paste ah ayaad u soo saari kartaa isla markaana hoteelada makhaayadaha cuntada iyo dumarka adeega suuqyada sariibadaha meelahaas oo dhan aad ku sii iibin kartid sidoo kale greenhouse-yada qayb ka mid ah waxaa aad loogu beeraa basbaaska barbarooniga tusaale ahaan oo kale basbaas casaha oo kale ama basbaaska oo kale haddaad ku beertid waxaad samayn kartaa in aad machine dehydrator-ka ah ee qalajiyaha ah ee qudaarta qalajiyo oo kale intaad soo iibisid kabacdi mashiinka grinderka ah ee shiida aad xawaash u bedeshid oo xawaashka iyo basbaas casa ah aad suuqa xataa aad u iibgeysid magaalooyinka iyo tuulooyinka tusaale ahaan qudaartu maba dhul dhacdo oo hadday maanta ay Hargeysa ay qaali ku tahay ama Muqdisho ay raqiis ku tahay waxaad u sii qaadi kartaa Burco Jowhar Beledweyne Boosaaso haddaad Cergaabo ku haysid Boosaasaad geyn kartaa Baran baad geyn kartaa magaalooyin badan oo deriskaaga ah ayay qudaartu markasta qiimaheedu ka sareeya oo gaadiid loo saari karaa magaaladaada kaliya wax soo saarkeedu kuma xidhna marka walaalayaal mashaariicda greenhouse-yadu waxaan isleeyahay haddii si fiican loo manage gareeyo 6 bilood ee ugu horeeya waa 6 cycle-ka ugu horeeya ee wax la beero ayaa lacagtii lagu maalgeliyay ay soo celin karaan ama 70% lacagtii ama 100% faa'iidadiisii ay soo celin karaan lafahooda ama raasamaalkii galay waana mashaariicda ugu wanaagsan ee passive income ahaan la maal gashan karo waxaan ogsoonahay in dadkii iyo bulshadu ay sii korayaan oo ay badanayaan balse dhulkii aanu badanayn oo korayn waana sababta adduunka oo dhan maanta macaashadii iyo cuntadii ay u sii qaaliyoobayso oo qudaartii u sii qaaliyoobayso qofkii markaa dhul haysta greenhouse ku dhex xirta qudaar soo saarta qudaartaasoo cunnada daruuriga ah ee waxyaalaha aan sida joogtada ganacsiyaan laga maarmin ka mida wuxuu heli karaa biilkiisa iyo weliba kharash dheeri ah oo faa'iido ah waxayna shaqo abuur u noqon kartaa dadkii familka dhallinyaradii dalka joogay waxayna maartay 4 greenhouse 10 greenhouse qof ama 2 kaliya ayaa ka shaqeyn kara waxaad arkaysaa hadda magaalooyinka hadda Turkiga oo kale markaan u safrayo ka sakariya ahaan greenhouse-yadooda yani waxay qudaartooda geeyaan Ruushka waxay geeyaan Ingiriiska waxay geeyaan magaalooyin badan oo greenhouse-yadaasi ka dhisan yihiin oo magaalooyinkeena ka waaweyn ayaad arkaysaa si waba inaga oo 200 milyan iyo dheeraada oo qudaar la inoo soo dhoofiyo haddaba walaalayaal qudaar badan oo yaanyadii cucumberkii ama khiyaarkii bartiikhii cambihii water maxani melankii maxay ahayd hadduu ilaahay ku roon yahay barbaroonigii basbaaskii spinachkii koostadii qudaar badan oo kala duwan ayaa greenhouse-yada gudahooda lagu beeraa oo sanadkii oo dhan 12 bilood aad ku beeri kartid waa mashruuc aad u faa'iido badan insha Allah walaalayaal qofkii maal gashanaya lambarka ugu horeeya commentiga aan bingareynayo click had saamto halkaas ayuu la soo xiriiraya qof kasta oo markaa documentiga ama PDF ka gata halkaas ayuu qiimeyaashii ka helaya anna insha Allah waan ka caawinaya waxaan maanta markaa warbixin idinka siinayay 4 mashruuc oo aan dhawaan hirgelinay cabiradooda inta geeda lagu beeri karo waxyaalaha ma artay ka kooban yihiin insha Allah walaalayaal inta aan muuqaalo kale oo greenhouse-ka ku saabsan playlist-gan ayaan idinka tagayaa sidoo kalena waxaan idinka keeni karnaa wadanka Turkiga oo si joogto ah uga soo dhoofino haddii ay qalabkii tahay materialkii tahay haddii ay tahay seedkii ama iniinihii laga beerayay qudaarta oo dhulkeena lagu tijaabiyay waxyaalo badan ayaa insha Allah isagana gudihiisa aad ka sii heli doontaa inta muuqaalkan muuqaalxiga ku kulmi doono waa walaalkii Sakariya Cabdullaahi Cali salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh